Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub. Maantana waxaa bilaabaynaa buug cusub oo la magac baxay Ninkii Macquulka Ahaa. Waxaa qoray Bashiir Mikaa'il. Buugu waa 16 bog. Waxaa ka samaynaynaa 2 muuqaal oo keliya insha Allah. Fadlan muuqaalka like saar, siina shargaree, channelkana subscribe garayso. Dhib badan baa maraa soo diyaarinta muuqaalada, waxna kama faa'iido oo alle dartiis baa u soo gudbiyaa si ay dhalinyada aan waxba akhrin u kordhiyo garaadkooda iyo wacyigood. Marka fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe garayso. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ah ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay buuga aad halkan ka dhageysatid waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalside. Marka fadlan si wacan u dhageyso buuga. Dhageysi wacan. Ninkii Macquulka Ahaa. Sheekadani waxay astaan u tahay dareennada ku gacan saydhka diinta iyo dayrada dad lahaa diin qarniyo fog. Foolxumo iyo jahli la taami kari waayana dhaxal siiyey. Magaciisu waa Badruudin. Wuxuu ku nool yahay magaalo yar oo qadiimi ah oo ku taala seerayaasha caasimadda gobolkiisa. Magaaladu waa mid aad u qara yar, hase ahaatee waxaa wada degan reer miyi ay abaartu soo xaraysay iyo reer magaal daanta kale garabka ku haya. Waa magaalo wada camiran, acmaal badanina ay ka dhex socoto, haba iska yaraato. Saakay xilli uusan soo kici jirin ayuu soo kacay. Waxa uu soo baraarugay qoraxdii oo iimaysa. Cirka ayuu sare u eegay, isaga oo saanqaafka qolkiisa oo badhidunsan ka eegaya awoodda qoraxda, isla markaana odorosaya kulka cadceeda. Waase xilli baay, xilligan uu wax odorosayaa. Waxaan jeclaan lahaa saaka in aan xilli hore kaco si aan qoyskayga wax ula qabto, ayuu niyadda iska yidhi. Waa uu hinqaday, weliba sidii caadadiisa ahaydna wuxuu ka galabsiiyey salaad kadabkeed go'ay. Waa uu baxay si uu tanaad waadha oga dhex raadiyo noloshan keligii la cirbisan, salkiisana dhulka u diiday. Ma muhashadayda ayaa meel iska qaban la, mise maankayga ayaa habaaran, mise xayaatada ayaa kadeed ii xanjeerisay. Weedhahaan ayaa dubaaqiisa ka sii yeedhayay markii uu kadinka qolkiisa ka soo baxayay. Waxa uu jawaadhiiba ka war helay in hooyadii ay saaka xanuunsatay, isbitaalka tuuladana loola cararay. Warku waa war xumo. Tashiilkiisuna waa ka sii badin. In wax la ogaado oo war la helaa waa aafo. Warmooguna waaba warmo. Warka aad maqasho erayadiisu inta ay doonaan haleekaadaane, waxaa ku lamaan edag iyo ablay garmaqaate ah. Weli way qabowdaa, waa tii la yidhi. Erayse ma qaboobo. Walaacaan waan toobin ayaa awalba sida guluubka bigdam igu hayay sidaa ifka. Saakase iskii tacbaan u ahaa iyo jidh la hollada waxyeelooyinka nolosha ayuu ismaqashiiyey judhaasba. Hooyadii waa xaadsan kaahin oo 3 carruura oo isagu weyn yahay ku korisa bagaash yar yara oo ay ku gado damalo xagaro jaanta ku haysa. Waa kaas saaka ay banaysan godad iyo garbo uusan weligii tabin. Waxa uu isha la raacay damalo xagaradii hooyadii ay quudkiisa ooga saari jirtay oo saaka si bankii qiyaamo u haawanaysa. Inkastoo aysan hooyadii tawafin, haddana wax kasta waxa uu u arkayay waa cusub oo wajeer cusub ku soo dhoweeyey. Wuxuu marar badan isweydiiyey halka ay dhibtu ka jirto, halka ay fikir xumadu ka haysato. Wuxuuse u tiiriyey si haleel la'aan ah salaadaha uu ka galabsiiyo aamin kasta. Maxaa yeelay salaadu waa tiraha saxariirta, qofkana siiya faayitaan iyo nolol sareedo leh. Isaguse wuxuu u arkayay in ay tahay wax aan si uun u beddeli karin noloshiisa, waxa dhibka ku hayaana aysan iyada ahayn. Rajo kama laha nolol salaad la'aan ah, inuu beddelana taladeeda kuma jiro. Waxaan tagay isbitaalkii tuulada oo ay dad badani buux dhaafsheen. Waxaan ag fadhiistay hooyaday oo aad u liidata. Waxay igu tidhi, hooyo wax ma cuntay, oo saaka quraacdii aan ku diyaarshay ma cuntay. Waan aamay. Marna doqonnimo, mar kalena hooyo naxariisteeda ayaa kala goys walba idahaadhay. Anigu waxtar xumadayda
kama ooyayo ayuu si gadood ka muuqdo u yidhi, waxaa iga oohinayaa waa in aanan helin hoosiiskii aan ku hantaaqo burburi lahaa. Teeda kale maba ooyeyninba, ayuu gudaha iska leeyahay marar kale. Kicitaankii ayaan haleeli waayey. Tani waa naxariista ay dunido idil ku taagan tahay. Hooyo waa hooyo uun, cidina ma gudi karto gelina abaalkeeda. Waxaan u soo baxay bannaanka si aan gelinkaa ooga fakaro waxay hooyaday aniga iga mudnayd xaaladan ka hor iyo waxay dabadeed iga mudnaan doonto. Waad baabii sida qiica oo kale, ayuu igu yidhi oday duq ah oo garabkayga ka soo muuqday. Aragaygu waa uu hayaa ruuxan gabaabsiga ah, laakiin waxaa kadiso igu noqotay sida uu ku akhristay waxa aan ku faqaynay aniga iyo maankaygu. Ama kaaga ayay igu noqotay. Adeer, waxaad ka mid tahay kuwa dadka cuquushooda akhrista, ayaan markaaba maqashiiyey odaygii oo sii socda. Waa uu isoo eegay, isagoo muusoonaya, caqli badni sarena ay ka muuqato, kalsoonina ay u dheer tahay intaas. Kuwa aanan xaf idin iyada ma guulaystaan abidkood, ayuu igu yidhi. Waxaan weydiiyey waxa uu ula jeedo iyada. Markaan waa uu cadhooday, ciil ayaanu ismaray. Sidee ayaan u aqoon nuur dunida adigoo sheegaya islaamni ah? Sidee ayaanad hooyada u akhrin wax ka mid ah nuurkaas? Laakiin waxaad tihiin kuwa ku khasaaray. Nebigiinu adiga iyo kuwa kulalaka ah ayuu wax hal mar ka badan ku soo celceliyey. Markaas ayay jidhidhico tin iyo cidhib isaaqday. Waxaan yaqiinsaday sida aanan oga ilbixi jirin in aan isku mashquuliyo wax aan tacab ii soo jiidayn. Waxaan gartay sida aan u dayacnay wax badan oo arrimihii nebiga ka mid ah. Waxaan kaloo yaqiinsaday sida aan dulliga ugu suganahay haddaanu nahay ummatu Maxamed. Waa laga bixi ayaan isku idhi. Kadib ayaan mar kale su'aalay waxa uu ula jeeday iyada. Odaygu wuxuu u muuqdaa qof aanan meel kale u socon, dadka deegaankana ka mid ah, laakiin horay umaanan arag noociisoo kale. Gacanta ayuu iigu ishaaray kuraas meesha taalay. Waan wada fadhiisanay. Wuxuu bilaabay mawaadiic iyo dersiyo aanan weligay ku fikirin in ay yihiin kuwa wax tanaadiya, bulshaduna ay ku horumaraan. Wuxuu yidhi, adeer, maxaan ka qaban lahaa tuuladan yartaa? Maxay dadaydu u tahay dada ibliiska aan dhiman oo kale? Dadku waxay ka hadlaan arrimo aanan weligood sinaba ugu qaayibnayn. Waxay dirsaan wax aan loo dirsan, waxay kaa weydiinayaan waxyaabo aanad adigu u sheegin in aad wax ka taqaan. Qaarkood waxay dhiig udaadiyaan shaydaanka si ay dunida u hantaan, gacantana ay ugu dhigaan wax aysan awalba munaasib ahayn in la haystaa. Qaar kale ayaa iyaga u sacaba tuma awliyo ayay ku tilmaamaan kuwo bariga Afrika dega, mayee aan dhaho Soomaalidii maanka furnayd, iminkase lagu dul furay dhaan shaydaan iyo quud awliyo aanan la aqoon. Badruddin waa magac raad ku leh diintaada. Halakana waxaan isweydiiyey cidda u sheegtay magacaygiyo macnihiisa. Waa uu sii hadlay. Marba haddii uu diintaada raad ku leeyahayna, waa in aad adiguna raad ku yeelataa diintaada. Dhalinyarada muslimiintu diintooda ma bartaan mana daraaseeyaan, qaarkoodna waxayba ka tageen iyadii dhammayd salaada ayaan ula jeedaa iyada. Maxaa yeelay hadaaya ayaad i weydiisay yay tahay iyadu? Hagaag, wiilkaygiyow, iminka ma iska bixi karaa, adna hooyada ma u wehel yeeli kartaa, ayuu yidhi. Anigu waan yaabanahay, yuu yahay odaygan arrimahaagoo dhan mid kuugu sharaxaya, ayuu dubaaqaygu isweydiinayaa. Wiilkaygiyow, middaas ha isku daalinin, maxaa yeelay anigu waxaan ahay sayitani, ayuu yidhi. Balse qumaati umaanan fahmin edaygan, kol dambaanse fahmay in uu la macno yahay Ibliis. Anigu ma garanayo waxyaabaha diinta ku soo arooray oo Ibliis la isaga weeciyo, sidaas daraadeed ayaan baqdin badan u dareemay. Isbitaalkii kadib, habeen ma aanan gamin. Dariishada ayaan ku mamay, anigoo isleh armay ciddi kaaga soo boodaa. Niyadayda kuma aysan jirin in aan axadkii odayga ahaa aan mar dambe la kulmi doono. Maxaa yeelay shaydaan, baqdintii ayaan ka qaaday. Awooddeenii ayaa soo muuqatay, kolkii aad idinku wiiqdeen awooddiinii ayaan agtayda ka maqlay, se cid ma arko. Humaag baqdineed ayaa ii daarmay, carar ayaan jabsaday.
masaajidka oo aanan weligay gelin ayaan maalinkaas halhaleel u galay. Waxaan u ekaaday qof dhex ruqaansaday goob uusan weligii tegin. Martii ayaan noqday. Kitaabkii Quraanka ahaa ayaan soo qabsaday. Markii aan maagay in aan kala furo ayaan maqlay waxaa islaamka guntiisa ka jirta wax la yidhaahdo alwudu. Waan ogaaday in aanan weyso qabin. Waan soo weysaystay. Markaas ayaan dareemay deganaan iyo in la iga qaaday reeriyo isaarnayd. Kitaabkii ayaan kala furay. Isla judhiiba waxaaba baalkii ugu horreeyey bud ka soo yidhi aayad u qornayd sidan oo fajiciso igu noqotay kol dambe. Duco ayaan akhristay Quraankii kadib waxaana niyeystay in Alle ila doonay khayr iyo waxsan. Waxaan yaqiinsaday in aan doonis Alle u noolahay, waa doonis weli sii nool. Si weyn ayaan markan ugu qasbanahay in aan duruufahayga nololeed wax ka beddelo. Laga yaabaa in dhammaantiin aad sidaas go'aansataan, balse aydaanin samayn xataa aniga. oo qudhayduba markii ugu horraysan waxaan ahaa saalim sareeya, balse hadda waxaan ahay shaqi dulaysan oo Alle ka furtay ayay ciddi dhagtayda soo gaadhsiisay. Waxaanse u fahmay in uu weli ila joogo odaygii xumaa. Intaas kadib waxaan soo baxay anigoo wax badan fahmay, dareemay in korka la inaga haysto, gartay in aynu garda duub ugu xidhanahay Ibliis iyo qoladiisa. Waxaan yaqiinsaday in aynu wax kasta u samayno doorasho uu isagu leeyahay ee aynaan ahayn doorashadeenna. Maxaa yeelay kuwo badan ayaa rumaystay duruusta uu bixiyo Ibliis. Maansooniyadda ayaa ina xukunta adduunku wuxuu gacanta ugu jiraa waddamada reer Yurub. Dhulku uu goglan yahay maahan sida beedka oo kale. Ahraamaadka Masar waxay astaan u yihiin jiritaanka awoodda shaydaanka iyo cusboonaysiinta madxafka Ibliis. Hal qolo ayaa dunidoo dhan maamusha. Eedayadaas iyo kuwo kaloo badan ayaynu u nahay maxaabiis. Waxaynu addoomo u nahay qawaaniin aynu anagu aqbalnay jiritaankooda iyo jiritaan la'aantoodaba. Sumad kasta oo jirta waxaynu u saadaalinaa sabdhamme aanantiisa meel marin. Midaasina waa dulinimo. Arrad xumo ayaynu kaga suganahay diinteenna suuban, silicuna halka uu naga fuulay waa dayaca iyo darxumada diinteenii macaanayad. Waxaan isweydiiyey sidee dadku mar kale ay Alle u baran karaan, weliba si ilxaadnimada ka dheer, balse waxaan yaqiinsaday inaysan hadhin cid damboo arrintan fahanta. Waagii ayaa mar kale baryay, cadceeddii ayaa mudh soo tidhi. Markan waa aan faraxsanahay, maxaa yeelay waxaan tukaday salaadii fajar, weliba amminteedii saxda ahayd. Ugu yaraan nin macquula ayaa tahay.